marka xarfa marka hadda konsolka dhisanaysan waa aragteeno salaada ma xiranto maalin kasta waa idinka jabtaay waa la idinku wareeraayo waa kala falkisaano waxa weeye inna wajadna aabaana waxa weeye hadda waxa maana xarfa reerka maqanba xaafada yada kamid ah u mareynaya inta kale waa la dhay dadka oo dhan xilwaanay ku haystaan markii ninkii waa ay labadooda ka digi jirtay xilwaan konsol buu soo doortaa marka Puntland waa isku daash hadda xarfo 19 xilwaan golo deegaan bay leedahay mushaar buu ma hayso dhaqaale uma hayso ayada kooban oo u baahan dad yar oo kooban hargeysada aad maqasheen ee ay degan yihiin halka min wax ku dhow konsolkeedu waa 13 xubnood ma aha 19 anaga hargeysa iyo xarfo isku mid baa magaala hargeysa la balacay dad la eego Puntland ku taalamiya jirta konsolkeedu waa 13 xilwaan waxaana doorto mujtamaca waxaana lagu doortaa dadkiisa wax u qaban karaa halkan laakiin tiradii ka bateen waxaan u marinay haddaan alla idin ka soo gaarin 19 sanadka dhow ka guuri doontaan waayo waagi dhaweed baan anigu maqlay wax idin kala gaaray marka qolooyinka waagi dhashanta heshana lix bay soo fariisanayaan kuwa saddexdan helana waxa rabaa dhashanta inay soo gaaraan marka meelka laga keenayo waa in dusha looga daro culayska loo siiyay Soomaa galka ay soo socotay 30 iyo xoogaa madax gelis Soomaa marka baashaas lagu daalay waa la iswareystay caawa si xarf u fadhido waxa looga fadhiyaa caawa meesha la dhahar armatiin baa jooga waxa la fadhiyaa caawa waaciye dadka ayaa baltarada la weydiin haddii inta reerka u talisaan la yiraahdo warbahasha anagu ma naqaano sida dadka qeybto dhahan gaala laga soo gaaray oo taayada aan naqaano nabadoonku go'aanka noo gaaminayo mar nabadoonka cid ku sheerin marna aan dhamasayno maalintu uu noo sadburiya dhahan Allah nabadoonku wariga adiga aabaha baa tirin jiray maalintu odagu cadaalad sameeyo yiraahdo reerka reer waligood beeqeynayaan xubinta idinku midda ku fadhidinay xabada ka kacana aanu asaga iyo aabiyo ilaa iyo aabaha lagu khasaari jiray waligiiba meel daran baa nagu tirin jirtay baasha haddaan noo dooranaysaan oo oranaysaan halkaas reerka lagu haynayaana mikrofoonka iyo kaamirooyinkaasan umada ugu geynayna waxa leenahay xarfa waxay tiri baashii hore baan isloogna hadaa dadka radaan oo hadda reemigu haduu caynaanka wax u qabto waa dhaqaaqi jirtay aad tiraadaan bisinka u qabanayna baasha hal rar aad tiraadaana waan u geynayna waliba hadda reebariga ma dhow anigu aan joogay caluula waxay u yiraahdeen warbo adaa mudug ka yimid reemudug maxay ka yiraahdeen marka waxaan ku yiraahdo hadda halka shaqaalan ka BDRC wax reeray waxa mudug tir kama oran karo waxay yiraahdeen waxay mudug ka baxnaa biira nimanka waxay ka yiraahdaan baanu ka baxnaa haday nimanka qabyaalad ka maarmaan waxaan ka guuraynaa dulmigii la isku hayay waxaan u guuraynaa qof iyo codkiisa iyo nasiibkiisa hadduu dumar yahay hadduu rag yahay taas waa sida weeye qofkii garanayana ha u garto qofkii kalena waxaa laga guurayaa qabiil waxaana loo guurayaa sinaan in la leeyahay dhowr iyo 10 nin niman kula baarlamaanka 20 sano inay afduub umadu u haystaan waa la diiday naloo haysan may afduub waxaan bixinaynaa war cad oo loogu soo hagaago mudug oo loogu soo hagaago Soomaaliya oo loogu soo hagaago Puntland waana la ku dayanaya aan ka guurna qabiilka waa laga guuray aan ayidno waa laga guuray aan hoosta ka saxiixo taasna intaasaan uga harayaa degmada iyo meesha laga sheekeynayo nabadoonku lahaa waa la googoost dadkii degmada ka hadli lahaa oo xaduudaheeda ilaalin lahaa oo maxaan ku sheegaa shacabkeeda wargelin lahaa oo deegaamaynta iyo dhulkii waa dadka halka fadhiyo weey waxaaba laga yaabaa in xog mooga laga yahay waxaana keenay qabiilka keenay arintaas reer hebel baa gudoomiyaha reer hebel baa ku xogeen reer hebel baa xogeeyay oo maxay u fadhiyaan may aadaan shughul kuma ay waa shaqaala weey dadka hadlaya oo dawladda ah oo dalka inay soo celiyaan xuduudihiisa iyo nabadgelyada waxa weey dadka meesha fadhiyo odayaasha weey waxaan leeyahay arinta loo istaago degmada xuduud bay leedahay meesha buurtila aanu kaga egnahay masaajidka ninka leeyahay Axmed Cabdulla Qoodhi wadaadka awrtablaha barkadiisa dhagaxa yaala weeye 15 kiiloomitir 20 halkaas ku weey hadda waxa weeye marna waa nala ku dayay oo ku dayad bay ahayd in hadda la ku ron yahay inta laga soo guuro isbaaral la dhigto fartooyo la dhigto hadday taas wax laga qaban waayay hadda waxa weeye degmada in la goosto waa waajib weey waa dad baysan lahayn waxaan leeyahay oo qolada maamulka u leeyahay oo odayaasha leeyahay oo dhalinyarada leeyahay oo gabdhaha leeyahay hal la guuro oo in la dhigaa bir iyo loo fuusto waa in la dhigaa in Cabdulla Qoodhi meesh waxaan jeclahay insha Allah inaan ka hadlo xuduudka Puntland ama hadda mudug degmada xarfo waxay gaalkacay u jeedaa 70 kiiloomitir
waxayna ka mid tahay degmooyinkii la sameeyey Puntland ay samaysay ayay ka mid tahay markii hore Soomaaliya mudug iyo nugaal la kala ahaa xuduudka mudug iyo nugaal wuxuu yaalay meesha hadda uu sheegay odaygii ugu horeeyay Bashiir Cabdille Guuleed baa xuduudka mudug yaalay inta meesha ka sokayso oo ka soo xigta mudugna waxay xisaabantahay deegaan mudug leeyahay marka aan sidaas leeyahay mudug iyo nugaal waa dad isku dadaba degan anigu nugaalna waan deganahay mudugna waan deganahay buurtaliya xarfana waa isku kaymid laakiin dadka ka shaqeeyay inay xuduudkii hore u yaalay mudug iyo nugaal wax ka sokeeya ay keenaan oo xarfo ay mudug qayb jaraan xarfo deegaanka ay xukunta qayb jaraan waxaan u arkaa inay yihiin dad iska horkeenaya bulshada iyo dadka walaalaha oo wada degan khalkhal iyo dhibna inay kaabuuraan sababta ay tahay buurtila 40 kilomitir baan u jirnaa 40 kilomitir 20 kamid ah la goosta waxaan oran karaa 15 kamid ah la gooyay waxa loo gooyay nugaal mar ahan cadaalad waxaan u arkaa in laga leeyahay ujeedo isku dhac iyo kicin bulsho laga leeyahay waxaan ogolaanayno ama qaadanaynana ma aha waxaan u sheegaynaa dawladda Puntland madaxweynaha ugu horeeyo golaha wasiirada baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka inay arintaas tahay haddii ay riyo tahay oo wax jira aysan ahayn hadda waa meeshada laakiin waxaana soo gaaray in la keenay qayb loo jaray nugaal degmooyinkii tuulooyinkii hoos imaan jiray xarf ay xukuntay arintaas qoraalkeedina waan aragnay hadda wax jira way wax dawladda ka soo baxay weeye waxaan leenahay arintaas waxaan qaadanayna maahan dhinacan gaalkacayo maadaama degmadu 70 kilomitir u jiro 35 kilomitir baan ku xisaabtamaynaa 35 kilomitirna gaalkacaya iskale ayadana waxaan qaadanayno in la geeyo 10 kilomitir wax ka yar xarfo loo soo reebo 60 kalena loo gooyo gaalkacayo ayadana cadaalad daraan u aragnaa iyo isku horkeen bulsho iyo dadka wada degan oo walaalaha oo waxba kala lahayn oo xarfo iyo gaalkacay isku mid yihiin in wax laga dhex shaqeeyo in la kiciyo ayaan u aragnaa arintaas waxaan leenahay dawladdu xal ka gaadho ana ka hortagto xuduudaha iyo xadaynta dawladda iskale laakiin anagu shacabkii iyo waxgaradkii deegaanka ka soo jeeday haddaanu nahay xarfo arintaas waxay nala tahay arin aan sax ahayn cadaaladna aan ahayn wax la qaadan karana aysan ahayn waxaan caaw ku faraxsanahay haddaan nahay degmada xarfo iyo shacabkeeda inay nala joogaan BDRC oo runtii bulshada Puntland wax muhiim ah ugu fadhida wax badan ka soo shaqeysay kaydinta iyo taariikhda Puntland wacyigelinta nabadeynta iyo horumarka Puntland inta markaan ka soo gudubno qorshaha waxa weeye dimuqraadiyiinta nidaamkan geedi socodka xaqiiqatan Puntland ilaa 98kii waxay ku soo caanamaalaysay odayaashuna soo qabteen laguna soo caanamaalay waxay ahayd nidaamkii hore haddeertaan laakiin in la dhaho waa laga guurayaayo ha loo guuro geedi caana leh aad baan u soo dhaweynaynaa annagu reer xarf haddaanu nahay waxaan soo dhaweynaynaa doorashada loo gudbay oo qof iyo cod aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa taageersannahay waa ka mid noqonaynaa dhaliilaha mar haddii la yidhi waa furan yihiin oo waa lasu sheegi karaa dhaliishu waa goonideeda laakiin meeshaa loo gudbay oo qof iyo codka ah waa wax loo baahan yahay oo dadka oo dhan u baahan yahay haddaan ahay cumar ahaan waan soo dhaweynayaa codka qof iyo cod in maaragtay dadka lagu doorto waan soo dhaweynayaa in bulshada ama shacabku ay doortaan qofka ay u baahan yihiin markii la yidhi xarfa qof iyo cod la keenayaana xaqiiqdii
waxaa niyaddeeda kusoo dhacday war bal haddii qof iyo cod ay tahay oo shacabku ay dooranayaan bal baad fiirisid mar kale adigu aad tirtantid marka waxay la tahay haddii la yidhi qof iyo cod waxaan diyaar u ahay inaan ka qayb qaadanno haddaan nahay bulshada reer Xarfo soo dhaweyno waxaa loogu riday odayaashu haddii ilaahay kuu raayo xeradii hore inay rabaan xeradii hore ma rabna in la guuro oo la wada tashado oo la guuraannu rabnaa Yaquubow iyo inta ay maqlaysaaba laakiin waxaan rabnaa meesha loo guuraya inaannu wada tashi ku leenahay oo wax ka ognahay inaannu wax ka ognahay in la guuro oo meesha loo guurayo aanu guurno oo aanu u guurno wada tashi aanu ku leenahay hal la codeeyaa la yiri yaa loo codeynayaa inaannu ogaanaan rabnaa gobolka Mudug ayaan ka soo jeednaa odayaasha dhaqanka oo ka soo jeedaanu nahay maadaama gobolka Mudug aanu ka soo jeednana xisbi malihin yaanu codeynaynaa baan leenahay maadaama xisbi aan lahayn gobolka Mudug yaanu u codeynaynaa in la isweydiiyaa la rabaa aad baan u soo dhow u bogaadinayaa oo caawa u faraxsanahay anigoo degmada Xarfo ku dhashay oo inta leeg ina caawa 400 oo qof oo reer Xarfo hortooda aan ka hadlayo ayagoo masiirkooda ka wada hadlaya aad baan ugu faraxsanahay waxaan inta raadinayay oo intaas aan hameen iyo maalin guuriga garaac u jiray waxa weeye inaan arko indhihii reer Xarfo oo ka hadlaya dantooda iyo masiirka iyagoo leeyihiin aad baan ku bogaadinayaa weligiina waxaan leeyahay isku tiirsanaada inta adduunka saarantiin aakhirina ilaahay jannada hayna geeyo mid xigta waa salaamaya hay'adda BDRC bogaadinta iyo hirgelinta ay noo wado aad baan u salaamaya ayuubna afkaaga caana lagu qabay baan leeyahay hadallada ku faraxna waa ka hadashay annagu haddaan haweenka reer Xarfo ama haweenka Mudug ama haweenka Puntland waa soo dhaweynaa in laga gudbo habka qabiliga ahaa oo loo gudbo habka dimuqraadiga ah bari in aanu codeyn karo oo codkayga ku soo bari in codeyn karo layna codeyn karo waa soo dhaweynaa afka beesha ma dhibaan ma u helin kursi uu ku lahaa degmada Xarfo geed dheer iyo geed gaaban asagoo uu fuulay ma u helin codkii uu ku lahaa degmada Xarfo golaha konsolka laakiin maantay madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa cod iyo qof hadduu yiri maanta ma dhibaan inuu heli karo codkiisa oo uu qaadan karo baan u bogaadinayaa una sheegayaa uguna baaqayaa beesha ma dhibaan xisbiyada Puntland oo la taabtay hadda ka hor anaga xisbiyada ninkii soo sharaxa qabiil looma leh qof ahaantiisa iyo dadnimadiisa yaanu ku dooranaynaa habda wixii aan ka aragno oo garasho ama caqli ama waxqabad Puntland ama Soomaaliya ayadaan ku dooranaynaa gobol ahaan ama qabiil ahaan u dooran maynee kan xiga iyo kan jifiyaha kale ayadoo inkastoo dadku isku mid yahay waxaan rabnaa kii wax qabanaya horta waxaa jirtay miisaaniyad hore oo dhalinyarada lacag yar ugu jirtay haddana markii dakhligu kacay degmaduna ay qaadatay la bedelay oo miisaaniyadii hore oo ay dakhliga yar ugu jiray oo sida guriga kirooyinkiisa iyo wax yar fana ay ku qaadan jireen in ay dhalinyarada ku bishaaraysteen in la bedelay oo dakhli fiican hadda miisaaniyadan ugu jiro ayna heli doonaan haddii ilaahayna oo ay taas guul tahay sidoo kale waxaan rabaa annagu waxaanu samaynay ka maamul ahaan qashinka meesha ay ka hadashay waa muhiim annagu waxaan samaynay god weyn oo god qashin ah waxaanu samaynay gaari qashin waxaanu samaynay gaari labaad annagoo bulshadayada u adeegana uguna adeegana dadka ganacsatadaana saddexdii bariba inaanu mar qashin ka qaadno oo gaariga u soo saaro dadka kale oo xaafadaha iyo haddii ilaahay guurayo magaalada gudaheeda iyo bilicda iyo wadooyinka iyo laamigana todobadii bariba inaan u soo saaro gaariga oo xaafadda maalin siino shirkeennan waa ka tashiga aayaha dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna qaybo weyn bay markaa inoo leedahay inaan mar kasta aanaan noqon dabakaymaad ee masiirka dalkeenna iyo meesha loo guurayo waxna la ka weydiiyo annaguna aan ka ra'yi dhiibano si sax ah oo qalbi furan oo naseexo ah inaan uga guurno maasha allah u kaambaalay mar labaad mar saddexaad waa soo dhaweynaynaa hay'adan
iyo mas-uuliyiinteeda ka socda waxaan ku soo dhawaynaynaa rabitaan aan rabno boorka noo qoran oo ah in loo guuro qof iyo cod shacabka ayaa codka iskale ma badinayo ugu badan caawa su-aalaha hadday noqoto hadday ra'yiga noqoto shirkan waxaa loo qabtay in lagu ogaado degmada Xarfo iyo nawaaxigeeda dadka ku nool barnaamijka Puntland hadda u guudhay waxay ka aaminsan yihiin iyo sida ayagu ay la tahay iyo waxay ku darayaan iyo waxay ka dhimayaan waxaan maleeyahay Yacquub khayr Allah siiyo waa noo wacdiyay tusaale badan buu ina siiyay mid magaalo iyo mid miyi labadaba nin yar baan u qaba galabta markaan arkay laakiin caawa nin weyn oo laakiin gaaban inuu yahay baan dareemay ma sha Allah kan odayaasha soo u tiriyay baa aad uga helay iyo islaamaha qaabadaha yihiin hagbadooda iyo sida wax loo raro annaga sidii hore noogu badan tahay odayaashana in badan oo kamid ah anigu waan ku jirana waxaan isleeyahay sidii hore noogu badisay oo taladeena la wadaaga mar